السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وده عادي هذا وما تنتهين ما أنت وأربعة وأنا سديت تبانك بش اللباد فبراير سنة كلبادة كون يلحي اللباتنك وأنا مالنتي كوباد رمضان ونكسن أيان إذا الله يهي ملك استوجبتنا الله نجا أقبل أعماش رمضانك وهلا فائدة أيان إذا الله مو قال كم حرب إن ذي كله وذاقه maxkamadaha dhinaca immigration-ka guuldarooyin maamulka Trump ay kala soo gudboonaadeen kadib markii wiil iyo gabar Muslim ah oo ardadii mudaharaadka sameyn jirtay xilligii dagaalkii Gaza uu socdo ahaa dowladuna ay xirtay isla markaana ay tiri waan masaafurinayna oo garsoorayaal ay amar ku bixiyeen inaan la masaafurin karin iyo ninkii Kilmer Abrego Garcia ahaa oo aan ognahay dhibaatada ka dhalatay markii maamulka Trump uu wadankiisa El Salvador u masaafuriyay oo hadda garsoore amar uu ku bixiyay inaysan mar kale dawladdu aysan dib u xiri karin sidoo kalena maxay tahay fadeexada dul hoganaysa wasiirka amniga gudaha ee wadanka Mareykanka Kristi Noem iyadoo hadda afhayeenkii wasaaradda amniga gudahana ay iscasilayso maxay tahay xiriirka hoose ee kala dhaxeeya ninka ku xigeenka u ah wasiirka amniga gudaha oo hadda soo shaac baxaya xilli waliba hadda wasaaradda amniga gudaha ay ku dhawaad muddo toddobaad ah aysan wax lacag haysanin kadib markii labada xisbi ay ku heshiin waayeen in wasaaraddaasi la maalgeliyo iyo in kala khilaafka dhinaca howlgallada ICE ka dhashay darteed arrimahaas ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay maamulka Trump markii uu xilka la wareegay in uu bilaabay qabqabashada ardadii muslimiinta ahayd ee mudaharaadka ka sameynaysay jaamacadaha dagaalkii Gaza markuu bilowday kadib isla markaana dalbanayay jaamacaduhu inay joojiyaan lacagaha ay siiyaan dowladda Yahuudda arrintaasi darteed maamulka Trump marka waxa uu bilaabay ardaydaasi in uu intuu qabqabto isla markaana masaafuriyo dhowr arday ayaa jirtay oo xarigoodu uu soo shaabaxay isla markaana warbaahinadu ay si aad ah u hadal hayeen waxa kamid ahaa yarkii Maxamuud Qaliil oo hadda la leeyahay Algeria ayaa laga yaabaa in loo masaafuriyo waxa kamid ahaa ninkan dhalinyarada oo Falastiiniga oo isagana la yiraahdo Muhsin Mahdawi oo 34 jir ah ninkan gobolka Vermont ayaa lagu qabtay bishii Abriil xilli waliba uu u socday interviewgii uu dhalashada Mareykanka uu ku qaadan lahaa ku dhawaad 2 toddobaad markii uu xirnaa ayaana la soo daayay ilaa hadda marka wali maxkamadiisa ayaa socotay arrintaasi sanadkii hore ay ahayd bishii Abriil ee sanadkii hore 2025 xilliga la xirayo marka hadda garsoore federaal ah ayaa waxa uu yiri wadanka lagama masaafurin karo isagu green card ayuu lahaa markaasi waxa uu dalbanayay dhalashadiisa marka maadaama mudaharaadyadii uu ka qayb galo dadka Falastiiniyiinta taageersan oo ahaa sidaas darteed ayaa wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio waxa uu yiri waxa uu qatar ku yahay siyaasadeena arrimaha dibadda hadda garsoorahan marka waxa uu yiri wadanka lagama masaafurin karo sidoo kale waxa jirtay gabar iyaduna dhiganaysay jaamacadda Tufts University oo PhD diyaarinaysay oo wadanka Turkiga u dhalatay isla markaana Ramadaankii hore oo 25kii bishii March laga qabtay magaalada Somerville ee gobolka Massachusetts waliba iyadoo banaanka taagan oo afar u socoto ciidamo dharcada ICE intay u yimaadeen ay xireen gabadhaasi ku dhawaad muddo 6 toddobaad ah ay xirnayd waxaana la soo daayay bishii May 9keedii iyadana hadda garsoore ayaa waxa uu amar ku bixiyay in aanan wadanka laga masaafurin karin maxaa yeelay ma jirto wax cadeyn oo dowladda wasaaradda amniga gudaha ay u hayso oo macquul ah oo dadkan wadanka looga masaafurin karo labadaasi arday Muhsin Mahdawi isaguna jaamacadda Columbia University ayuu horay uga qalin jibiyay marka labadaasi guul darro oo kala duwan ayaa maamulka Trump kala soo gudboonaatay dhinaca maxkamadaha federaalka sidoo kale waxaa jirta Kilmer Abrego Garcia ninkii wadanka El Salvador u dhashay isla markaana maamulka Trump sharciga Alien Enemy Act markii uu isticmaalay dadkii uu masaafuriyay wadanka El Salvador kamid ahaa oo xabsiga sida weyn loo ilaaliyo Seacode la geeyay laakiin bishii June ee lixaad dib loogu soo celiyay Mareykanka markii arrintiisa arrin weyn ay noqotay oo xitaa senator Maryland laga soo doortay maadaama Maryland uu deganaa ninkan Kilmer Abrego Garcia inta uu baxay xabsiga ku booqday la soo kulmay dib ayaa loogu soo celiyay Mareykanka dowladuna waa tii ku eedeysan ninkan muqallas ayuu ahaa daroogada iyo dadka iyo caruurta ayuu Mareykanka soo galin jiray intuu xuduudda Mareykanku la wadaago Mexico ka soo wado marka dhowr jeer ayaa dib loo xiray dowladdu waxay ugu hanjabaysay wadan Afrikaana inay masaafurinayso mar Uganda lagu geenayaa leeri mar Eswatini ayaa lagu geenayaa mar wadankaada El Salvador ayaa dib lagu celinaya marka markastaba waa la xirayay waa la soo daynayay hadda marka waxa ay qareenadiisu ay xaqiijiyeen in garsoore la yiraahdo Paula Shinis oo Maryland
caasimadeeda Baltimore fariisata ay amar ku bixisay inaan ninkaasi mar dambe dib loo soo xiri karin. dowladdu waxay tiri dacwadaha ay ku haysato waa ay soconayaan laakiin banaanka ayuu joogaya, wadankana lagama masaafurin karo, dibna looma soo xiri karo. arrintaasina waa arrin kale oo maamulka Trump guuldar haddana la soo gudboonaatay dhinaca immigrationka. Trump xitaa ninkaasi su'aalo fara badan ayaa laga weydiiyey, xitaa wuxuu yidhi M13 ayuu ka tirsanaa, gacantiisa ayay ku qoran tahay sawir photoshop oo la sameeyey. marka arrimahaasi oo idil ninkaasi arrintiisuna halkaasi ayay maraysaa. sidoo kale maamulka Trump guuldaradaasi ayaa kala soo gudboonaatay. dhinaca wasiirka amniga gudaha Christine Ohm aan imaado, fadeexa fara badan ayaa dul hoganaysa. waxaan ognahay howlgalkii ay ciidamada ICE ka wadeen gobolka Minnesota ee Metro Search hogaankiisa waa tii ku guuldareysatay oo markii dambena Trump uu Tom Harman u diray, haddana ka bixitaankii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota ay socoto. laakiin hadda fadeexadahan soo baxaya, wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu qorayaa ninka ku-xigeenkeeda oo la yiraahdo Corey Lewandowski in xiriir jacayl uu kala dhaxeeyo. Christine Ohm wasiirka amniga gudaha waa la qabaa, ilmo ayay leedahay, ninkan naxaas ayuu leeyahay, ilmo ayuu leeyahay. marka sidaas darteed waxaa la leeyahay xiriir ayaa ka dhaxeeya. waxaa la ogaaday in diyaarad 737 Max oo $70 milyan joogta, isla markaana dowladdu ay leedahay in ay labaduba ku safraan, qaybta dambena waxay ku leedahay la yiri diyaaraddaasi meel la seexdo. sidaas darteed waxaa la arkayaa markasta oo diyaaraddu ay hawada ku jirto qaybtaasi gadaale iyagoo galaya. teeda kale waxaa jirta in mar diyaarad ay saarnaayeen inta cilada ku timid diyaaradaha la kala bedelayay, in busto ay lahayd wasiirka amniga gudaha diyaaradii kale ee ay ka guurayeen oo diyaaradda kale ay ku wareegayeen oo bedelanayeen in bustihii looga soo tegay. marka pilotkii waday, duuliyihii waday oo ah duuliye ka tirsan ciidamada ilaalada badda oo ayaa waxaa shaqadii looga joojiyey maxaa bustahaasi diyaaraddaasi uga soo qaadi waysay ay wasiirka amniga gudaha lahayd oo diyaaradan kale aad u soo saari waysay. shaqadii ayaa laga ceeriyey, laakiin saacado kadib waxaa la yiri diyaarad shacab oo commercial qaado iska aad gurigaadii. laakiin saacado kadib markii ay rabeen inay baxeen waxay ogaadeen duuliye kale inaysan haysan. isagii ayaa dib loo wacay oo la yiri shaqada ku soo laabay kaalay diyaaradda mar kale wad. marka arrintaasina waa ay jirtaa, fadeexadaasi ayaa lagu eedeynaya xiriir jacayl inuu kala dhaxeeyo ninkaasi la yiraahdo Corey Lewandowski oo iyadana ku-xigeenkeeda ah. waxyaabaha kaloo soo baxaya waxaa ka mid ah in khilaaf uu ka dhaxeeyo wasiirka amniga gudaha Christine Ohm iyo ninka Trump uu u xil saaray arrimaha masaafurinta iyo xuduudaha Tom Harman. waxaa la leeyahay Christine Ohm mid ka mid ah shaqaalaheeda ayaa waxay u xil saartay inay la socoto inta jeer oo TV-yada uu ka soo muuqanayo ninkan Tom Harman. isla markaana waxa ay dalbatay in iyadu TV-ga ay ka soo muuqato in ka badan inta Tom Harman uu ka soo muuqanayo. marka waxaa lagu tartamayaa TV-yadii iyo sidoo kalena aniga ayaa intaasoo TV ka hadlay iyo isaguna intaasoo TV ayuu ka hadlay. khilaafkan muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu soo baxayay, xitaa markii ay ku guuldareysatay howlgalkii ciidamada ICE ee gobolka Minnesota waa kii Trump halkaasi Tom Harman u diray. sidoo kalena waxaa jirta hadda in wasaaradda amniga gudaha lacagtii laga jaray, iyadoo sidoo kalena afhayeenkii hadda wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin ay shaqada ay ka tagayso. waxaa jirta horeyna muuqaal kale waan ugu sheegay in sanadkii hore 220 milyan oo kontraktiyo wasaaradda amniga gudaha ay bixinaysay, in kontraktiyadaasi la siiyey afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ninkeeda company uu iska leeyahay, waxaana lagu bixinaya xayisiino ay kasoo muuqanaysay wasiirka amniga gudaha. wasiirka amniga gudaha waxaa lagu yaqaanaa in xayisiino kala duwan ay samayso, mar maadaama wasaaraddeeda hay'ado badan ay hoos yimaadaan, mar dharka ciidamada ICE iyadoo ku libisan, mar dharka ciidamada xuduudaha, mar dharka ciidamada ilaalada xeebaha, mar FEMA hay'adda maareynta masiibooyinka. marka lacag fara badan ayaa lagu bixinayay. kontraktiyada dowladdana waa la xayisiyaa, waa loo tartamaa, laakiin in ay siiyeenba afhayeenka aqalka cad afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ninkeeda company oo madax ka ahaa ayaa kontraktiyadii la siiyey. hadda marka sidaas darteed waxaa la leeyahay afhayeenkii wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin waa iscasilaysaa. marka hadda maadaama cadaadis fara badan iyo fadeexadan ay ku furan yihiin, ma laga yaabaa inay iscasisho wasiirka amniga gudaha. Trump ayaa la weydiiyey toddobaadkan hadda arrintaasi xiriirka ka dhaxeeya wasiirka amniga gudaha iyo ninkan ku-xigeenkeeda ah oo la yiraahdo Corey Lewandowski. Trumpna wuxuu yidhi arrintaasi anigu waxba kama ogi. hadda sidoo kale waxaa soo baxday in 2 askari oo ciidamada ICE oo kuwii qayb ka ahaa howlgallada ka waday
gobolka Minnesota waxaan ognahay markii la diray Renee Good 7 January waxaa xigay in la dhaawacay nin kale oo isaguna wadanka Venezuela u dhashay oo 14 bishii February marka labadii askari oo ciidamada ay waxay yiraahdeen ninkan waana soo weeraray waxa uu watay badeel iyo sidoo kale xaaqinka ushiisa marka waxa la ogaaday markii dib loo baaray arrintii inay been sheegeen oo aysan jirin arrintan arrin ay soo dhoodhoobeen ay ahayeen ninkii dacwadihii lagu soo oogay oo la dhaawacay dawladdu hadda waa ay tuurtay labadii askari oo ciidamada ICE maadaama iyagoo la dhaariyay inay run sheegaan ay been sheegeen hadda shaqadii waa laga joojiyay marka labadii dil marka hadda Renee Good iyo waliba Alex Bradina maxaa marka ay been oo sheegeen ciidamada ICE marka arrimahaasina hadda waa ay soo baxayaan hadda maanta waxa arkay xeeraryaha degmada Hennepin Mary Mariadi oo dawladda dhahayso waa in cadeymaha Alex Brady dilkiisi aad soo bandhigtaan. Yesterday and today, our office submitted TUI demands to gain access to evidence held by the federal government. In state court, we use subpoenas to obtain any kind of evidence. TUI is simply a process to obtain records and evidence from the federal government because you can't simply subpoena it. Our first demand seeks evidence from the federal government in relation to Alex Pretty's death at the hands of federal agents on January 24th. Late last week, the federal government informed the BCA that they will continue to block access to evidence collected in the death of Alex Pretty. We understand that the Trump administration sent a representative to oversee the discussions between the BCA and the FBI. A final decision was conveyed to the BCA at the end of last week that there would be no cooperation. Hiding evidence and obstructing our investigation is unacceptable, and it indicates a total lack of confidence in their agents' own actions. Our second demand seeks evidence related to the shooting of Mr. Sosa Solis by a federal agent on January 14th. The federal government filed criminal charges against Mr. Sosa Solis and another individual, alleging that they assaulted a federal agent. Those criminal charges were based on information provided by agents who we now understand are on leave for lying under oath. In the latest in a long string of humiliations, the Department of Justice was forced to dismiss both cases with prejudice, meaning the charges cannot be refiled. We are demanding the evidence in both of these shootings by March 3rd. We are prepared to take further legal action should the Department of Homeland Security and the Department of Justice fail to meet our deadline and continue to obstruct our investigations. waxyaabaha kale ee soo kordha haddii alla idin waa la soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo